iyadoo aad u faraxsan ayay ka soo duushay magaalada Muqdisho laakiin markii ay soo gaartay magaalada Hargeysa maxaa ku dhacay ku habsaday oo ku dhacay Mrs. Wal maxay sababtay oo ahayd sababta lagu xiray eelaboorka aadan cigaal international ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland maxay ahayd xadada loo hayay Mrs. Wal oo ah qof dhalinyaro ah ama gabadh barta TikTok caan ka noqotay taasi oo aan wax siyaasada shaqo ku lahayn hanan marna ka hada Soomaaliland iyadoo si qaldan u hadlaysa haddaba Mrs. Wal wixii lagu xiray iyo ereyada ka dambeeyay inay habbi ma hanaadhay hayo shirqool u dhigtay ayaan barnaamijkan idinku la wadaagi doonaa laakiin marka hore waxaan ka codsanayaa in muuqaalka like sarto soo kan u share saaxiibadana kale ee Facebook iyo YouTube keenana subscribe dhaha saaxiib si aad u aragto wax kasta oo soo dhignay YouTube keena oo qiimo leh oo hadalkaas kala socoto soo kalena haddii aad harin loo joogtay aad baad ugu mahadsan tahay muuqaalka noo leegare una share gare saaxiibada kale Facebook iyo YouTube keena waa Cabdalla Deqsi aan awood badan saari doono insha Allah muddo badan ayaan ka maqlay barta YouTube iyo soo kale Facebook labadaba aad ayaad ugu mahadsan tahay la jaanqaadkaaga iyo qurux badan noo joogto waxaan rajaynayaa inaad gaarsiin doonto saaxiib badan oo u wanaagsan adiga oo kale laakiin waxaan codsanayaa Facebook-geena inaad follow dhahdo oo sidoo kalena had waqti badan la joogo doonto laba Facebook ayaan leenahay waa boqorka Isteelka iyo Munasir Maxamed ma ogi midkan hadda soo dhigi doono laakiin midka aad aragtaba Munasir Xuseen aan dhahday midka aad aragtaba please follow dheh muuqaalkan la garay haddaba gabadha caanka ah Mrs. Wal ee barta TikTok caanka ka soo kalena iminka furatay Facebook page-ka ayaa hadda noqotay qofta ugu hadalhaynta badan baraha bulshada maalmihii iyo saacadihii shalay ee la soo dhaafayna waxay ahayd qofka ugu hadalhaynta badan in ay ku xiran tahay xabsi ku yaala magaalada caasimadda ee Hargeysa haddaba Mrs. Wal oo barta TikTok caanka ah waqtiga salaada ayaa lagu jiray naga raali hada Mrs. Wal oo barta TikTok caanka ah ayaa lagu xiray xabsi ku yaala magaalada Hargeysa amba garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada Hargeysa hanaadhay cigaal international airport ee magaalada Hargeysa halkaasi oo ay saacado badan oo xabsiga ku jirtay liinta cabaysi kadib loo soo celiyay dhinacaas iyo magaaladii Muqdisho oo tarxiil ahaan loogu celiyay halkaasi oo waliba laga qaaday lacagta diyaaradda markii labaad la celinayay waliba waa arrin runtii mucjiso noqotay balse habbi ayaa ka dambeysay ay leeyihiin asxaabteeda Mrs. Wal ku doodaya inay shirqoolkan ha ku dhaco Mrs. Wal amba lagu xiro garoonka diyaaradaha ee cigaal international airport haddaba si ay arrintan u dhacday habbi iyo iyada maxaa ka dhaxeeyay maxay sababsatay bal afkeeda hay nooga sheegto Mrs. Wal muuqaal yar oo aan ka hayno ayaan intaawsin doonaa عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وتقوى مجال مقدشو وايم هذا أنا عافمات قبو إن هذا ما سنتين دليل هذا الرسومالان أو يوسوي سيربورك أنت قفوا يتجنيت معنتك هذا ما سنتين أو حلوه استبحث أنا هب جيم كعديلين ليش مقدشي سومالان مدورة أنا جنا وحدها إن مقدشي ما نقدر صناعي منها وأنا رون ستيل وأتجنا مقدشي ما نقدر صناعي منها إلا ستيل أتجنا فأنت سومرك أنت سلويس تحلي ده أيدي كارد دولة ده هيستي أنت كان أيدي كارد صبي دولة أو شقسة إن علن كهستاسان ويا بنا ولي دولة دوش قيبين علينا دوش قيلاي سو مركز حبي وأنا وتقوى إن لايف هسوكلتنا حرك بعد أرنت المسترنا حق السعودية الحمد لله وأنا في عنها wal hadda way fiican tahay waxayna ku noqotay Muqdisho barnaamijkan oo dhameystiran ayaan idinku soo gudbin doonaa markeen labaad ee halka kala soco wad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka inuu la gareeyo soo kalena page-ka follow dheh maasid iyadoo aad u faraxsan ayay ka soo duushay magaalada Muqdisho laakiin markii ay soo gaartay magaalada Hargeysa maxaa ku dhacay شايف والله كورن دريكاga maanta والله maanta dareenkaygu aad buu kacsanaa laakiin kasto leeyahay iminka intii Mrs. Wal airportka Hargeysa laga celinaya maadaama maanta dareenkaygu aad buu iminka u liitaa in dhakhtarka weyn la geeyaan ka baqayaan darteed iyada wadi wala